kulanti waxaan asxaabe meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka Arimaha Fanka. maanta waxaan idin haynaa 15 filim ee lacagaha u badan ka soo xareeyay magaalada Mumbai iyo filimada Hospital for iyo War halka ay ka galeen. magaalada Mumbai waa magaalada ugu weyn ee Hindiya, ganacsiyan waa magaalada ugu fiican. waxa hubaal ah haddii ay filimkaada ay ka helaan reer Mumbai inuu ganacsi ahaan guuleysan karo. haddaba markii filimada Hospital for iyo War dhawaanahan tiyaatarada Hindiya la saaray waxaa isbedel weyn ku yimid kala sareynta filimada lacagaha ugu badan ka soo xareeyay magaalada Mumbai. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa 15 filim ee ganacsiga ugu badan ka soo xareeyay magaalada Mumbai. filimka koowaad waa Bahubali, waxa uu keenay 186.1 karoor oo ayuu ka keenay magaalada Mumbai. filimka labaad waa Dangal, waxa uu ka keenay 104.26 karoor. BK waxa uu ka keenay 104.21 karoor. Tiger Sindahan waxa uu ka keenay 103.40 karoor. Sanju waxa uu ka keenay 101.86 karoor. Bajrangi Bahijan waxa uu ka keenay 9.77 karoor. Simba waxa uu ka keenay 89.33 karoor. Kabir Singh waxa uu ka keenay 87.20 karoor. Golmaal Again waxa uu ka keenay 87.8 karoor. Sultan waxa uu ka keenay 86.30 karoor. Yuri Strike waxa uu ka keenay 84.11 karoor. Hospital for waxa uu ka keenay 79.25 karoor. filimkaas 13aad waa Street Dogs waxa uu ka keenay 79.19 karoor. Badmaafad waxa uu ka keenay 78.86 karoor. War ayaa ugu dambeeyay waxa uu ka keenay 77.42 karoor. marka Hospital for waxa uu ka keenay 79.20 karoor, waxa uu ku jiraa kaalinta 12aad, halka filimka War uu ku jiro kaalinta 15aad, asigana waxa uu keenay 77.42 karoor. waxa halkaas warbixinta maanta ku soo qaadanay 15 filim ee lacagaha u badan ka soo xareeyay magaalada Mumbai. fadlan subscribe haddii kale waad mahadsantahay.